habeen wanaagsan khiyaarta hawada naga daawanaysay waa markale iyo barnaamijkeeni wararka iyo caaw qodobadan idinku hayana waxa kamid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka cawday in imaaraadka carabtu si gaar ah ula tacaamulo Somaliland iyo maamul ay kamid yihiin Puntland iyo Jubaland madaxweynaha Somaliland oo maanta la kulmay wasiiradii hore ee soo maray wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo baaq nabadeed u diray dalalka gobolka carabta iyo wadamada caalamka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo shaaca ka qaaday inaan la ogolaan doonin in Soomaali dambe oo bilaa sharci dalka Mareykanka sii joogto isaga oo ogeysiyay Soomaalida inay dalka si degdeg ah uga baxaan inta ka horeysa 17 bisha Maarch ee sanadkan wasiirka wasaaradda difaaca Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka soo degay magaalada Laascaanood laguna soo dhaweeyay halkaas daawadayaal qodobada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa kana naga daawanaysaan waa Kennedy Media oo Kennedy ba barnaamijkeedii la socodsiinay haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si degdeg ah ugu dhawaaqay in Soomaali dambe oo bilaa sharci aanay dalka Mareykanka sii joogi doonin isagoo ogeysiyay qof kasta oo Soomaaliya oo bilaa sharci ah inuu si degdeg ah uga baxo dalka Mareykanka inta ka horeysa 17 bisha March ee sanadkan lagu jiro madaxweynaha Mareykanka oo la og yahay inuu Soomaalida aad u neceb yahay horena ugu dhawaaqay in qof bilaa sharci ah oo dambe ajnabi aanu dalka joogi karin ayaa Soomaalida si gaar ah u bartilmaameedsada had iyo goor haddana ku dhawaaqay in qof Soomaali ah oo dambe oo bilaa sharci dalka Mareykanka sii joogi doonin waxaana u egtahay 17 bisha March inta ka horeysa hadii ay Soomaalidu iskaga bixi waayaan dalka Mareykanka in dhammaan la tarxiili doono laguna guri doono xabsiyada waaweyn ee dalka Mareykanka madaxweynaha Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo maanta isugu yeeray lana kulmay wasiiradii hore ee soo maray wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa hadaladiisii waxa kamid ahaa sida tan waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan u sheego dalalka aanu saaxiibka nahay deriskayaga walaalahayaga carbeed iyo kuwa gobolka ee muslimiinta ah iyo kuwa aan ahaynba gaar ahaan kuwa ku jira Africa Union dadka waynu isaga dhownahay waxay naga dhaxeeya dhul taariikh diin iyo dana kale waxaanu idinka mudnayn inaad idinku hogaamisaan garabsiinta qadiyadda Somaliland haddii se la idinka dheereeyay waxaan gaar ula hadlayaa dalalka carbeed iyo kuwa islaamka weli fursado badan ayaa u furan idinkoo gobonimadana ilaalinaya yaanay caadifada iyo muusanowga maangaabku idin hodin oo ka hadhina aqoonsiga Somaliland dalalka kalena way aqoonsanayaan bulshada caalamkana way ka mid noqon doontaa kursigii ay xaqa u lahaydna way ku fadhiisan doontaa kuwii boholaa ku jiray way soo baxeen kuwii dhuumanayay way soo baxeen maanta waxaynu kala ogaanay yaa cadow inoo ah yaa saaxiib inoo ah waxaynu kaga baxaynaa inaynu cadaawadda iyo colaadda aynu ka hortagno midnimo qaran madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si gaar ah uga cawday dowladda Imaaraadka isagoo oo sheegay inay la macaamusho oo ay saaxiib dhow la noqotay Somaliland iyo maamul ay kamid yihiin Puntland iyo Jubaland hadaladiisina waxa kamid ahaa sidan waxaa lagama maarmaan noqotay inaan qaadano go'aano taabanaya heshiisyadii nagala dhaxeeyay dalalka qaarkood oo aan u aragnay in aysan u adeegayn midnimada dalka dadka iyo dowladnimada Soomaaliya sida aad ka warqabtaan shalay oo ay taariikhdu ahayd 12 January 2026 golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aamiyay in la buriyo dhammaan heshiisyadii dowladda federaalka Soomaaliya la gashay dowladda isu taga Imaaraadka Carabta oo ay ku jiraan kuwa quseeya kaabayaasha dhaqaalaha amniga iyo difaaca laba geesoodka ah ee ku xusan go'aanka golaha wasiirada ka soo baxay shalay waxaa hubaal ah in dad badan isweydiinayaan maxaa keenay in dowladdu buriso heshiisyadaas ay kula jirtay dowladda isu taga Imaaraadka Carabta waxaan rabaa in aan dadka Soomaaliyeed u caddeeyo in dowladda Imaaraadka Carabta aan la lahayn xiriir wanaagsan oo dhankeena aan u galnay si niyad samaan ah oo qalbi furnaan ah nasiib darro dowladda isu taga Imaaraadka noolama dhaqmin sidii dowlad mid ah oo madax bannaan intaas kadib weli maynaan degdegin ee marar badan ayaan ka dalbannay dowladda Imaaraadka inay noola macaamilaan in aan nahay hal dal
oo madax bannaan mas-uul ah ayna joojiyaan habka docfaruurka ah ee ay albaabada kala duwan uga soo galayeen dalkeenna ayagoo ku kacaya arrimo aanay mararka qaarkood ka warhayn dowladda federaalk ee soomaaliya kana dhex fulaya soomaaliya gudaheeda kuwaas oo xadgudubna ku ahaa haybadda iyo qarannimada dalkeenna ka baaraan degid dheer iyo qiimayn badan kadib waxaa qasab noqotay in aan qaadanno go'aanadii shalay soo baxay ee lagu baabi'iyey heshiisyadii nagala dhexeeyey dowladda imaaraadka carabta wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa isagana lagu soo dhaweeyay san horba idinku sheegay magaalada Laascaanood wasiir Fiqi oo markuu xamar ka soo baxayay sheegay inuu tagayo magaalo kamid ah Soomaaliland oo Laascaanood leedahay ayaa isagana waxa kamid ah hadaladiisii sida tan ula jeernay ana wacdaynaya waxa ula jeernay adduunkana u sheegeen ardu Soomaal wax la yiraahdo hadda ma jirto ardu Soomaal ama Soomaaliland waxa la isku dhigi jiray dhulka hadda aan joogno iyo midkaan kooxda gobolka ay joogaan inaan meel ka mid ah waliba dhulka intii buskiis inaan u socon lahayd fariin adduunka loo diray waana la diri doonaa maalmaha halkaan joogno waxaan marka ay leedahay dhadhanka ay leedahay waxay tahay meeshan waa buundada midnimada waa saldhigga midnimada Soomaaliya taasaa qof kastoo ay tagana sharaf u tahay wasiiradii dowladda Soomaaliya oo dhanna iyo dowladdii Soomaaliya xildhibaanadeedii iyo ummaddii Soomaaliyeedba indhaheedii iyo joogitaankoodiiba halkaan ay joogaan maalmahan marka marti culus baa idiin joogta laydinkala dardaarmi maayo soo dhawayntooda waxaana idinkaana runtii sababay dadka deegaankan baa sababay in intaasoo Soomaaliya la martigeliyo ayadoo wax cabsiyo jira cid laga cabsanaya ilaahay baa laga cabsanaya kaliya bidiyarada dhexdeeda waxa ka soo keentay wardiman baa saynay هذا مراد بيرد اللي هذا وقفوا كل شيء ورجيم بقى زيناي هذا مراد